السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي السلام يا كبيحنتين به ملو البود يقدر ونيسان يسوي البعد كي يديسو قاريبا عندنا يا مانتا إن أنك الله دور أهمود أو very important أما حيالها قدام بيا إتهاجن كتيرة سياسة ده سوماليا ينكا ورمايا وعنكو كهال دونا يا إن كل أبطو هذا الكشري كسب حي دولة ده مريكنكا إيهان شباب دهها siyaabo kala duwan runtii ay dadku u fasirayeen balse aan isleeyahay hadalka inta badan dadku dulucdiisa ma aysan fahmin waxaan kaloo ka hadli doonaa doorashada Soomaaliya miyay daahi doontaa haday daahdana maxay tahay meelaha laga filayo inay doorashada daahiso maxaa meelaha ka taaganna waan ka hadli doonaa waxaan kaloo final ka hadli doonaa Saciid Cabdullaahi Dani oo muslim iyo gaalaba isku raacday inuusan musharax ahayn cid walbana ay ku tiri iska daa waxba helimayside balse wali inda adeegayana waan ka hadli doonaa saddex qodob baan ka hadli doonaa soo dhawaada intiina daawanaysa hadii aad la sii wadaagi kartaan asxaabta kale Facebook la sii wadaaga si muuqaalku inta nooga guda balaxnaado hadii aan ku bilaabo hadalkii Mareykanka soo baxay markii si dhaba loo fasiro statementiga Mareykanku uu soo saaray macnaheedu dhanba wuxuu noqonayaa cid walba oo doorashada Soomaaliya carqabadaysa haday heer federaal yihiin iyo haday heer maamul goboleed ay yihiin waxaan u diidi doonaa on xayiraad ka saari doonaa soo galida dalka Mareykanka dadka arintan ka hadlay inta ugu badan waxay ka hadlayeen runtii yaa la hadlaya oo message ku socda laakiin waxa arintaasi aan islaahay way ka muhiimsan tahay waxa weeye miyay sameyn karaan Mareykanka arintan iyo ma jirta cid ay Mareykanku siiyaan fiisaha dalgalkooda horta haddaan labada marka aan la fahminin hadalkooda wax macna inoo ma sameynayo xaqiiqatan waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka degan oo ka warqaba arrimaha una dhundulaa ayaan ka mid ahaa 2016 baa ugu dambeysay inta aan ogahay dad siyaasiyiin ah oo Soomaali ah ama baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo dalka Mareykanka inta booqasho ku taga ka soo laabta wixii xilliga ka dambeeyay waxa dadka Soomaalida ah dalka laga saaray runtii ban ama waxa laga saaray joojin baa looga sameeyay siyaasiyiinta Soomaalida ama soo galaan dad kale oo ayaga qaraabo la ama soo galaan baasaboorka Soomaaliga lama soo galo wixii inta ka dambeeyayna waxa la saaray xayiraado waaweyn oo la yiraahdo travel ban iyo Muslim travel ban iyo arrimo la yiraahdo oo waaweyn baa Soomaalida la saaray ilaa iyo 8 dal oo Soomaalida ay ku jirta ayaa la saaray marka wax hadda nolo kugu booteenayo Mareykanku booteenayo hore ayaa loo sameeyay baasaboorka Soomaaliga ana hore ayaa loo tuuraa waxa kale Soomaalida uu ku sameeyay Mareykanka in xataa Soomaalida kale ee baasaboorada ajaanibta haysata xataa kuwa Canadian ka haysta xataa waa loo diiday inay soo galaan gudaha dalka Mareykanka kuwa UK degan mar hore ka qoosteen Yurubta kale warkeeda badaa ma jirto marka cid Soomaali ah oo baasaboor kala haysata iyo cid baasaboorka Soomaaliya haysata oo Mareykanku wax xurmada u hayo ama u dalkooda uu soo galiyo ma jirto waxa mar hore ayaa laga tagay waana arrin runtii mar hore lagu sameeyay marka hadda in lagu hanjabo wax mar hore lagu sameeyay waxaan u arkaa inuu hadalkaas wax macna inoo sameeyeen hadalkaani Mareykanku uu leeyahay miyuu sameyn doona oo dadka doorashada Soomaaliya dhibaateeya ama daahiya ama isbaarada u dhigta miyuu ku sameyn doona arinta saan islaahay waa may hadalka iga soo qora hadii doorashada hadda meesha ay marayso ay gaarto xataa yeerkan u dhamaado xataa Mareykanku cidna intuu waraaq soo saara dhihi mahayo waxa loo yaqaano cidaasan travel saarnay band dalka naga ma soo gali karto dadka Soomaalida ee siyaasiyiinta ana Mareykan oo ma socdaan asaguna saare mayo uu og yahay inaysan iimaanaynin asagoon sidaas sameeyninba hadii ayuu diidayaaba hadalkaani markii si dhaba loo fiiriyo waa hadal marar badan la sameeyay Mareykanku hadalkan hadda ay yiraahdeen labadii sano oo la soo dhaafay waa markii afaraad oo ay leeyihiin sanadii hadda ay naga dhamaatay 2021 qaybteedii dambe mar bay yiraahdeen isla sanadkaas qaybtiisii horena mar bay yiraahdeen 2020 qaybteedii ugu dambeysana mar bay yiraahdeen haddana mar bay yiraahdeen waa hadal marka iska yiraahdaan cid walbana ay ku yiraahdaan laakiin markii si dhab ah loo turxan bixi hadalkaani waa hadal uu Mareykanku ku doonayo inuu nagu xasuusiyo inuu wali joogo Soomaaliya
oo uu faragelin ku hayo oo uu siyaasadeeda ka warqabo oo uu wali active yahay uusan soo xinin hadal lagu xasuusinayo weeye laakiin ma ahan hadal la samaynayo oo laga dhabaynayo oo wax noocayo shaqeeya oo naloo diidaya inay jiraan macnaheedu ma aha meelaha Mareykanku uu Soomaaliya ka joogo oo meelaha ugu dhibaatada badan tusaale wuxuu xarun ku leeyahay dalka meesha loo yaqaano magaalada Kismaayo ay xarun ku leeyihiin waa meesha ugu dhibaatada badan oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed ugu dhibaateeya weey waa meesha dhuxusha laga dhoofiyo waa meesha dhulka laga xaalufiyo waa meesha dhibaatada loo kaga hayo weey Mareykan marka anaga inoo danqan mahayo doorashadeena u danqan mahayo wuxuuna kamid yahay dawladaha ku macaasha dalkeena dhibaatada u geysta dhibaatada inaan ku sii jirana doonaya faragelinta nagu hayo ayuu kamid yahay Mareykan anaga ehel ma ahan in doorasho dhacdo shuqul kuma laha kuwa ina dhibaateynayana inay nasiib dhibaateeyaan insan dhibaateynina wax shuqul ku leeyahay ma jirto hadii caawa doorashada daahda intay Siciidan iyo Axmedoobe iyo dana Roble iyo Faristaan ay yiraahdaan waxaan soo saarnay schedule kaleeto oo September bay dhacaysa doorashada hadii la yiraahdo sanadka hadda aynu ku jirno Mareykanku wuxuu soo qoray oo soo dhaweynayna heshiiska markaysa wax walba oo la galo waa soo dhaweynaya waxa la wuxuu rabana uu iska leeyahay hadal marka macna sameyn doona iyo hadal cid u shaqeeya ma aha nimanka uu leeyahay ganax baan saaraya naftirkoodu Kenya kula hadlaya oo Axmedoobe iyo Daniya iyo Roble ayuu Kenya inta la fariisto bari kula sheekaysanaya oo shaac kula cabaya waraaqdii hanjabadeed soo saartay xay ka baxda cid taqaana ma jirto marka waa qowda maqashii oo waxba u qabanin inuu joogo u buna xasuusinaya inuu hanjabi karo laakiin wax uu hadalka uu ka sameynayo iyo wax waqti uu ku bixinayo inaan dhibaato ku jirno midna shaqo ku mulaha dadku waxay inta badan ka fiirinayaan Siciidani baa loo socdaa kan baa loo socdaa Madoobe baa loo socdaa waa hadal fool xumo ku ah dawladnimadeena waa hadal in la yiraahdo qaldan waa hadal in laga jawaabo mudan ma aha hadal aynu annaga maanta isku tuturno midka inoogu foosha xun dalkeena dhibaatada ku haya hadii uu magaca Soomaaliya wato waa inaanu ka dhiidhinaano magaca annaga waxba lagu sameyn Soomaalida meesha ay taal waxa dhigay waa hebel baa loo socdaa adiga lagu ma socdo maalinka hebelka loo socdo iyo adigu cidinka kala garanaysa mar adoo idin bas kala garanayaan intaas aan uga baxaya hadalka waxaan rabaa inaan u galo doorashadu miyay waqtigeedu ku dhici doontaa Soomaaliya sanadka waa February hadda aynu ku jirno 15keeda miyay soo dhamaan doontaa doorashada aqalka hoose su'aashu waa maya doorashadu way daahaysaa wayna daahi doontaa wayna muuqataa inay daahayso cid hor istaagi karta inay daahaysana ma jirto maxay la daahaysaa dhowr arrimood ba doorashadu way daahinayaan koow Jubbaland iyo Puntland meesha la yiraahdo labaduba waxa ka muuqda in doorashadu ay ka daahi doonto hadii aan ku hormaro dhanka Puntland waxa ka taagan boosaaso abaabul iyo baraarug ku aadan in dhibaatada Siciidan iyo maamulkiisu ay ku wadaan ay ku hayaan reer boosaaso iyo reer bariga in laga baxa ayaa socota mar walba oo shacabka baraarugaana waxa si kala fogaanaya Siciidan iyo wax loo yaqaan iyo reer boosaaso mar walba si kala fogaadaana waxa meesha ka sii baxaya in boosaaso ay ka dhacdo doorasho way si fogaanaysaa mar walba hadeerto mataqaana wixii rabaa ka baxan reer boosaaso abaabulka ay hadda wadaan qaybta ugu weyn waxa weeye inay dekada dayactir ku sameeyaan inay dhistaan dekadooda inay la wareegaan dekadooda iyo arrimahaas ay ku baraarugsan yihiin dekadaasi hadii ay marka baraaruga uu socdo oo ay wadaan odayaasha dhaqanka waxgaradka ciidamada BSF iyo shacabka gabi ahaantoodba arrintaasi way ka siman yihiin waxay doonayaan inay magaaladooda u taabashaystaan inay dhistaan inay ka bixiyaan gacanta meesha loo yaqaan nimankan la yiraahdo Imaaraadka mar walba ay arrintaas socota marka way si kala fogaanayaan Siciidan halka doorasho kuma u qabanayo meeshaas marka xaalad baa hadda ka aloosan wayna ka sii aloosnaan doontaa inay doorasho ka dhacdo Siciidan iyo halkaas uu kuraas u raadsana way adkaanaysaa isku day doonaa inuu dhaho garow loo wareejiyo isku day doonaa inuu dhaho mataqaana ana sameynaya iyo isku day badan laakiin isku day walba isku dayoba wuxuu noqon doonaa isku day la hor istaago markastoo la hor istaagana doorashadu halka way ka daahaysaa waqtiga dhici doontana lama garanayo waxa ayada ka sii daran oo doorashadu ay ka daahaysaa waa dhanka Jubbaland iyo magaalada Garbaharey runtii waxa ka taagan mushkil adag baa ka taagan muddadan way ka taagnayd wayna ka taagnaan doontaa waa halka ugu dhibaatada badan oo doorashadu ay ka dhici doonto sanadkan markii aad dib ugu laabato heshiisyadii 17 September kii 16 February iyo kii 27 May ma jirto wax habraac ah oo dhab ah oo doorashada Garbaharey looga qabanayo meel ay ku qoran tahay ma jirto
markii aad fiiriso habraacyada kaleeto dalka doorashada lagu qabanayo iyo midda garbaar la doonayo in loogu qabto wax shaqo isku meel ah tusaale oo kale maamuladu waxay doorashada qaabka u qabanayaan waxay tahay in guddi ay leeyihiin oo seat la yiraahdo maamuladu ay leeyihiin iyo maamulkaba inay iska kaashadaan inay soo xulaan ergadii iyo cidii tartamaysay iyo odayaashii ka bacdin ay soo gudbiyaan oo feed soo gudbiyaan la soo dhajiyo hadhow markii ay doorashadii dhacda marka ay mataqaana kuwa khilaafaadka iyo kuwa feed ee ayagu marka ay shaqadooda qabsadaan ay monitor garayaan ay kor ka hayaan ka bacdin ay ku dhawaaqaan markaysaan garbaharey Axmed Madoobe ma tagi karo guddigan seat Axmed Madoobe Kismaayo ku haysto baarlamaanka garbaharey ma tagi karaan cidda ka qabanaysa marka ma seat kala la sameeyo garbaharey loo sameeyo ma gudoomiyaha degmada garbaharey oo la yiraahdo Axmed Madoobe ku dhawaaq asaga madaxweyne noqonaya oo sameeynaya cidda wax dooranaysa ma dawladda federaalka iyo feed baa sameeynaya cid ilaa hadda garanaysa ma jiro marka habraac dhab ah oo garbaharey doorasho looga qaban karo oo banaanka yaala oo heshiis lagu yahay ma jiro Axmed Madoobe iyo dawladdu isma bixiyaan reer garbaharey ama reer Gado iyo Axmed Madoobe waa kala fog yihiin ciidamada meeshan jooga waa ciidamadii dawladda sidee doorasho looga qabanayaa waa su'aal taalo weey meesha marka garbaharey waxay noqon doontaa baan isleeyahay meesha ugu dambaysa oo ay doorasho ka dhici doonto waayo wax habraac oo doorashada lagu aadi doona meesha ma yaalaan wax heshiis lagu yahay meesha ma yaalaan waxa marka muuqata in halkaas la daahi doono in doorashadu ku istaagi doonto umana malaynayo xaqiiqana ma aha in 16 kuraas ee garbaharey taala inta laga gudbo doorashada la qaban doono soo marka Boosaaso iyo garbaharey labadaba waa lagu hakan doonaa bisha soo socota ee March iyo April iyo May iyo June ba ila gaareen aamisana iyo wixii ka dambeeyay waayo waxa loo baahan yahay inay doorashadu noqoto doorasho loo dhan yahay oo xildhibaanadu soo wada baxeen 16 kuraas oo meel taala oo cidee qaban doonta iyo cidee habraacay loo maraya lagama gudbi doono waxaan kugu darayaa waxaan hayaa xog cadaynaysa in Axmed Madoobe iyo Rooble ay doonayaan in markii ay dhamaato doorashooyinka kaleeto ay yiraahdaan anaga doorashada garbaharey qabanayna anaga odayaasha soo magacaabayna anaga ergada aruurinayna iyo arrimaha la midka waxaan la doonayaa in Rooble la isticmaalo markaysaan arrimahaasi war arrimo aan garbaharey ka shaqeyn doonin ciidanka garbaharey degan waa ciidan federaal Rooble kama amar qaataan dadka magaalada degan waa dadkii intaas oo sano qaylinayay oo diidanaa Jubbaland oo heerkii la gaareen Axmed Madoobe cid walba ka warqabto oo maalin walba la duqeynayay oo diyaaradaha kayaanka ay duqeynayeen inta oga banaan baxay ma yeelayaan in Rooble meesha tago iyo cid Rooble ka socota inta garbaharey tagtay taa doorashan qabanayna oo meeshii hadana mar raad isku layn lahaa soo marka meesha dhibaato ka taagan dhibaatana ka imaan doonta waa xaqiiqo weey marka inaysan doorasho ayagu aysan rabinin aysan ka dhacayn cid walba way ogtahay waxa suurtagal ah oo ka fudud in Axmed Madoobe iyo doorasho ay qabteen Rooble in reer garbaharey yeelaan ama reer Gado yeelaan waxa ka fudud oo aan ugu aaminsanahay in marka ugu dambaysa hadii ay kala bixi waayaan in kuraasta macquul ah xataa in xamar loo raro oo dawladda dhexe ay tiraahdo kuraastaasi hal laga dhigo kuwa reer Soomaaliland oo kaleeto isla markaasna odayaashoodii dhaqanka iyo baalkii isugu tagaan Muqdisho wax lagu doorto waa meesha aan isleeyahay way ugu macquulsan tahay laakiin ma jiro habraac iyo qaab doorasho ku dhici doonto haduusan Axmed Madoobe marka uusan asaguna soo magacaabin gudiyadii iyo cidii mataqaana doorashada dhigaysana ayaguna yeeli mayaan asaguna yeeli maayo meesha marka wax ka soo socda oo doorasho u maleemay inay jirto taasna san oga baxaya waqtigeedenu ka hadli doonaa laakiin waa doorashada ugu dambaysa waana doorashada ilaa hadda aan la aqoon meel loo mari doono cid heshiisku aan isi jirin waxaan rabaa inaan u galo finally Saciid Cabdullaahi Dani Muslim iyo gaalaba inta isku tagtay ayaa loo sheegay inuusan musharax ahayn inuusan tartami karinin inuusan chance haysan baa loo sheegay waxaad ka arkaysaa dadkii Soomaaliya ugu nimcaa oo shisheeyaha ahaa sida Kenyaanka iyo Imaaraatiga waxay si public ugu sheegeen inuu wax chance haysanin waxay ku yiraahdeen hadaad adigu farmaajo la tartanto oo hoolka tagto farmaajo waa soo baxaya cid kale oo adiga ku dhaanta oo ku sumcad dhaanta oo ku waji dhaanta ayna u raadino inuu ninka la tartamo cidaasna taageer asagana waa diiday heer Puntland iyo siyaasiyiintoodii waxa garadkoodii hore uga diiday siyaasiyiintii kale ee musharaxiinta sheeganayay iyo kuwaasna hore u kala dhinteen cid walba oo Saciidani ku tiraahdaa sarixina waa kala dhimanayaan marka si dhaba u fiiriso Saciid Cabdullaahi Dani
وشخص أنا هين هل وح أو لو حش عمله تصالة ما أنت سعيد دني لما أرانيه وأنا قبيلة أقول لما أرانيه واحد أرتين بوكوها يا بوتلاند يدك أو مدحونها وياها لما أرانيه وأنا مسوق أقولين وأنا كحاله فيه دتك حاله هذي يلعقت هذي سعر برا كان كردي لما أرانيه وأنا دلقات بدن أو دولة نمده بو دلقات بدن يهاي دلقات بقولنا إن أنا سعيد دني ما تعيد أراني سامجرت لما أرانيه وأنا متقنا ودني أو وكذا كيسان وشيء كالكال مرنا إمارات وسي أردية مرنا كيان كوسي أردية نين دين يعقون يدول النمله وما أنت له وان علم يدين له أما وانين له هي عقون مادية يدول النمو يمامو بيقانانا سعيدني ما أنت أراني ما هنا واتكعرته دلقات كو أرت عيدنا كوكتشوه وانك لبا أريمرك اللي يراهدو أنا عرانية وكي استاجي برلمانك وواحد ويا كل حسمي برلمانك بطلان ما شرت واحد سعيدني لو حشو قال لي يا مسلم كي أنت سومالي نبعيد أنا بعد سكتقطي كتري هذا ترتنتو خلا لقى بدنا ياعي بل قفك هالسنة إن قفك نال تاجر ودي سعيد مركا رنتي وانكاوي ومالي ما هي قف سومالي ما أنت سعيد دوران أي عافمات طبعا إنه شو قف وأنا بو ماشي ده مركا هذه سعيد دني أنت سقفت وشاكتي ومعنا يولي هولكي هاي ماذا سعيد دني حام خبا إن أي إنه قدون 10 لما إلا وانا بس أوسم وحبي هلي دونن أنت عشان كسو كوبيا أنت ندب سكسر لعبنا وحني كتير استنى بدينه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.